sheekadan waa qof ka bogsaday xanuunka sokorta isagoo adeegsanaya cunto iyo jimicsi. Asxaabteeda sheekadan muhiim ayay noo tahay maadaama dadka Soomaalidu ay qabaan xanuunkan sokorta. sheekadana wax badan ayaynu ka baran doonaa. haddii aad jeclaataan waan soo badin doonaa insha Allah. Assalaamu calaykum maamil. waxaan ku keenay saliidda batana. run ahaantii saliidda batana maaha saliid kaliyaata, waa saliid daawo u ah salxanyaha iyo bidaarta, taas oo leh damaanad 100% ah. bilic ka maqneyd iyo timaha oo ka go'a, soo celi muuqoodo. isticmaal batana hair oil. batana waa saliid nooceeda tii ugu horeysay, badi dadkii isticmaalay u wada bogeen. kaalay oo ila tijaabi saliidda batana. saliidda batana waxay u fiican tahay timaha daata, salxanyaha, timaha kalarkoodu bedelmo iyo dhammaan caqabadaha timaha ku yimaada. sidoo kale batana oil waxay kor u qaadaa nafaqada timaha, waxayna soo celisaa midabkeeda iyo inay bixiso tinta. saliidda batana waxaan kugu keeni karnaa meel walba aad ka joogto Soomaaliland, iyadoo aad ku soo dalbanayso qiimo ku raali geliya. wixii faahfaahin dheeraadana kala soo xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. xasan waa 45 jir, waxa uu ka shaqeeyaa xafiiska. qisada xasan waxay ku bilaabanaysaa sidatan. markii hore waxba ma dareemayn, mararka qaar daal badan, haraad joogto ah iyo saxaro badan. waxaan moodayay inuu yahay daal iska caadi ah, laakiin maalintii aan isbitaalka tagay, sokortuna waxay ahayd 320 milligaraam per deciliter. dhakhtarkii wuxuu yidhi, xasanow waxaad qabtaa diabetes type 2. waxaan ka argagaxay hadalkiisa. dhibaatooyinka uu la kulmay xasan waxaa ka mid ahaa daal joogto ah, hurdo la'aan, miisaanka oo kordhay, murugo iyo walbahaar. markii hore waxaan moodayay in sonkorta ay tahay xanuun aan laga bogsoon karin, laakiin dhakhtarka iyo kalkaalisadii nafaqada waxay bareen cuntooyin aan iskaga ilaalin karo iyo kuwa ii fiican. waxaan bilaabay inaan iska daayo rootiga cad, sonkorta iyo cabitaanada sonkorta leh. isbeddelka uu sameeyey xasan waxay ahayd 1 inuu bilaabay socod 30 daqiiqo maalin kasta, inuu cunayay cunto badan oo khudaar ah sida kaabashka, yaanyada iyo saladhka, inuu cabayay biyo aad u fara badan, inuu joojiyo cabitaanka soodaha, cabitaanka sonkorta leh iyo buskulka, inuu quraan iyo duco akhristo xilliga waliba uu doonayo inuu dareemo nafisaad maskaxeed. natiijada uu gaaray xasan waxay ahayd 6 bilood kadib markaan mar labaad baaritaankii galay, sonkorteedii waxay hoos uga dhacday 110 milligaraam per deciliter, miisaankiina uu yaraaday. dhakhtarku wuxuu yidhi, xasanow waxaad tustay in adiga iyo rabitaankaagu aad caafimaadkaaga badbaadin karto. waxaan ku soo gudbinayaa daawade talo uu bixiyey xasan. wuxuu yidhi, xasan sonkortu waa xanuun la xakamayn karo, uma baahna daawo qura, balse waxay u baahan tahay isbeddel nololeed. haddii aan isbeddelay anigu, adiguna waad isbeddeli kartaa. bilow maanta, adigu ha sugin berri. gunaanadkii sheekada xasan waxay tusaale u tahay dad badan oo qaba ama ka baqaya xanuunka sonkorta. haddii aad la kulanto calaamado, ha ka xishoon inaad isbaarto. caafimaadkaagu adiga ayuu gacantaada ku jiraa.